Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum. Waxaa jira buugaag marka aad akhrido aad u malaynayso in la qoray waqtiga aad nooshahay iyadoo ay jirto inay soo baxeen 10 sano ka hor. Mar kasta oo aad bogagooda dhex mushaaxayso, waxaad dareemaysaa inuu qoray qof hadda nool oo garanaya waaqaca iyo dhibaatooyinka taagan. Waana sababta buugaagtaasi u waaraan ulana jaan qaadaan xilli kasta. Buugaagta noocan ah waxaa ka mid ah sheeko-faneedda Animal Farm, beerta xayawaanka ee uu qoray George Orwell, taasoo soo baxday sanadkii 1945. Beerta xayawaanku waa sheeko-faneed dhacdooyinkeedu ay ku qotomaan waaqaca iyo nidaam siyaasadeed oo waqtigaas dhisnaa. Waxaana jilayaal ka ah oo uu qoraagu kaga hadlayaa xayawaanka la gedisan. Sidaas oo ay tahay, marna dareemi maysid in xayawaankaasi ay ka duwan yihiin bini'aadamka buugga loogu talagalay. Sheekadu waxay ka bilaabmaysaa xayawaanka ku nool beerta Jones oo ah ninka iyaga iska leh, kaasoo ah arxanlaawe macangaga xayawaanaadkana u daran, iyo sida ay ula daalaa-dhacayaan dulmiga uu bini'aadamku ku hayo, sida ay ugu shaqaysanayaan saacado badan, wax soo saarkoodana u qaadanayaan iyagoo aan si fiican u qoodin, mararka qaarna dilaya xayawaankii howlgab noqda ama dhaawac soo gaadho, kuwaasoo ugu dambeynta go'aansanaya kacdoon ka dhan ah ninka beerta iska leh. Dhacdooyinkan ayuu qoraagu si farshaxanimo leh ugu sawirayaa xaaladaha dunida, sida kacdoonnada iyo habka ay u bilaabmaan, sida ay u guulaystaan xukuumadaha iyo nidaamyadu, sida ay noqdaan kacdoonka kadib. Xayawaanaadka ku nool beerta Jones waxay ka midaysnaayeen nacabka ay u qabaan bini'aadamka, maadaama ay u arkayeen noole caajis ah, danayste ah oo aan lahayn haba yaraatee wax soo saar ah. Waxaana ay ku soo celcelin jireen ereyo ay ka mid yihiin: wax kasta oo 2 lugood ku socdaa waa cadowgeen, wax kasta oo 4 lugood ku socdaana waa saaxiibkeen. Iyagoo shidaal ka dhiganaya nacaybkaas, waxa u suurta gashay inay kacdoonkaas ku guulaystaan mulkiilihii beerta ee Jonesna ay iska xoreeyaan. Waxa ay dejisteen nidaam dastuuri ah oo ka kooban 7 qodob, kuwaasoo noqonaya habraaca ay isku maamuli doonaan inta noloshooda ka hadhay. Qodobadaasi waxay ahaayeen: 1. wax kasta oo 2 lugood ku soconaya waa cadow. 2. wax kasta oo 4 addin adeegsanayana ama baalal waa saaxiib. 3. xayawaanka waa ka mamnuuc inay dhar xidhaan sida bini'aadamka. 4. inay sariir ku seexdaan iyana lama ogola. 5. xayawaan ma dili karo xayawaan kale. 6. waa mamnuuc in xayawaanaadku ay khamri cabbaan, iyo qodobka ugu dambeeya oo odhanaya in dhammaan xayawaanaadku ay siman yihiin. Qodobadaasina waxay ahaayeen kuwo ku filan in xayawaanka oo dhami ay si cadaalad ah u wada noolaadaan, waayo waxay ku baaqayeen sinaan dhammaystiran iyo in laga fogaado wax kasta oo soo xasuusinaya cadowgooda bini'aadamka ah. Si gaar ah waxaa maamulka beerta loogu dhiibayaa doofaarrada oo isu arkay inay yihiin kuwa ugu caqliga badan meesha. Qaybaha dambe ee sheekada waxaa loo akhrisan doonaa sida ay doofaarradu u jabinayaan dastuurkii lagu heshiiyey, sida ay u maroorsanayaan xukunka uguna tacdiyayaan xayawaanaadka kale, iyo sida uu u dhicisoobayo kacdoonkii ay bini'aadamka iskaga xoreeyeen, heer ay gaadho in heerka nolosha ay ka xumaato sidii ay ahayd waqtigii maamula Jones. Waxaa iyana muhiima inaynu xusno doofaarka lagu magacaabo Squealer oo ah afhayeenka rasmiga ah ee xukuumadda doofaarrada, kaasoo ay shaqadiisu tahay inuu ku qanciyo xayawaanaadka kale siyaasadda maamulkooda iyo hadba danahooda gaarka ah. Doofaarkani waxa uu ugu jiraa sheekada booska ay saxaafadda iyo guulwadayaasha madaxdu ugu jiraan xukuumadaha dhiigmiiratada ah ee shucuubta dulaysta. Si guudna waxaad uga dareemaysaa sheekada in heerka aqooneed ee xayawaanka badankoodu uu hooseeyo, taasoo uu weligodan leeyahay inuu ina tuso sida jahligu uga qayb qaato in dadku ku qancaan dulmiga xukuumadaha kalitaliska ah. Haddii aynu u nimaadno qodobka ah maxay dawladuhu u mamnuuceen buuggan, ugu horrayn waxay ahayd weligeedba wax dabiici ah in dawladuhu shucuubtooda ka mamnuucaan buugaagta qaar, maadaama akhrisku uu mar kasta ahaa meesha ay bulshooyinku ka qaataan xogaha iyo waxyaabaha aanay hore u ogeyn. Buuggan beerta xayawaankana waxa ku dhacay sidaas oo kale. Isla waqtigii uu soo baxayba waxaa loo fahmay inuu naqdinayo nidaamkii midowgii Soofiyeedka, taasoo keentay in raggii daabacayay ay joojiyaan, isla markaana wixii hore loo daabacay dib uga soo noqdaan maktabadaha. Waxaana xigtay in badi dawladihii xulafada la ahaa Ruushka
ee shuuciga ahaa ay dalalkooda ka joojiyeen buuggan maadaama uu tooshka ku ifinayay madaxda iyo xukuumadaha dulmifalayaasha ah iyo hababka ay adeegsadaan ilaa maantadanna sheekafaneedani waa ka mamnuuc wadamada kale ah Kuuba iyo Kuuriyada Waqooyi George Orwell waxa uu sheekafaneedan uga jeeday kacdoonkii Ruushka ka curtay waqtigaas Napoleon oo ah doofaarka hogaaminayay xayawaanaadka waxa uu uga jeeday hogaamiyihii Ruushka ee waqtigaas Joseph Stalin halka doofaarkii kale ee ku soo xigay oo lagu magacaabi jiray Snowball uu uga dan lahaa kacanyahankii weynaa ee Leon Trotsky kaasoo ay aragtida isku khilaafsanaayeen Stalin iyadoo ay taasi jirto haddana sheekadani waa mid ku habboon dawlad kasta oo keligii talis ah meel kasta oo ay ka jirto iyo xilli kasta oo ay jirto sheekafaneedani waa buug yaro qurux badan oo aanad farshaxanimadeeda iyo ashqaraarkeeda ka xiisa go'i karin qofkii aan weli akhriyin ha isku dayo inuu akhriyo buuggaas wax weyn ayaa kaaga bixi doona warka fiicanina waxa uu yahay in buuggan dhawaan la inoogu soo turjumay afkeena hooyo waxaanaad ka heli kartaa maktabadaha dalka gaar ahaan maktabadda Iqra Books xarumaheeda gabagabadii haddii aad akhriday buuggan sidee ayuu kula ahaa sidoo kale ma jeclaan lahayd inaynu hal buug soo falaqayno toddobaad kasta aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum